السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختيار سلف سلا دمانتين وايد السلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtiina waxaan aaminsanahay in meeshaan hadal badan uusan hadda iga furnayn goobta goob tiiraanyo tacsi runtii aad ayaan ugu xunnahay wixii ka dhacay gurigan 17 December 2017 wuxuu ahaa runtii fal aad iyo aad looga tiiraanyoodo oo in ay sharci darro tahay ama aan la aqbali karin qof Soomaaliyeed muwaadin gurigiisa jooga in sabab la'aan sharci la'aan iyo gar la'aan lagu dilo laguna soo weeraro waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho degan qaasatan xisbigooda jir iyo inta ku abtirsata dulqaadka ay muujiyaan intaas iyo in ka yar ayaa dagaalka ka dhacaa dhibaato ka dhacda runtii waxaad muujiseen dulqaad dawladnimada curdanka ah oo hadda la soo yabayna waad u turteen meeshii la rabay kuwii sida dimuqraadiga lagu doortay u tur waayeen runtii idinka u turay waxaana muuqata in islaantii la yiri cunuga labada islaameed oo la yiri hal idinka la gooyo oo tii lahayd ay tiri yaan la gooynin iska noolaade ana heli doonee tii kalena tiri hal kala gooyo macnaheeda turin fiican ayaad muujiseen runtii 2017 in la yiraahdo ama afgooyo aad ama afweyne raac ama maxaa la jiri ama afka qabso inay dhacdo macnaheedu tahay haddii aadan dawladda ku fikir ahayn magaalada Muqdisho kuma noolaan kartid wax la aqbali kara ma waa loo yahay xukunkii dictatorka ahaa wixii dagaal ka dhacay waxaan aaminsanahay dhaqankaasu inuu 91dii ku haray wiilal fara badan oo Soomaaliyeed ayaa god u galay annagoo rabna dal xura oo muwaadiniin xur ah oo Soomaaliyeed ku nool yihiin inaan dhalno saasaan rabnay nasiib darray ahaday bini aadanku waa gafaahay sida la sheegay wax garaawshiya lagama muujin Lawad Cabdiraxmaan wuxuu yiri xogaa isagoo lagu haystaan arkay martidiina waa fakfakanaysa dadkii beledka joogayna inuu horta ka noqdo ma ahayn markaas inuu ku adkaystay ahaday dalkan Soomaaliyeed waa la diriray waa la kala tagay nin walba tuulo iyo degmo jooga meesha uu joogana qofku hadii dawladnimada aysan xurmo siinayn oo aysan ixtiraameyn waxaan adiga ku turayn u turaysid taas xaqiiqo ah dawladnimada macnaheedu ma ahan in dadka lagu toojar gareeyo in loogu adeego loogu turo loogu naxariisto la isku dumo saas ayaan anagu u haysanaa runtii dhalinyaradii meeshan ka ku laatay ama lagu dilay waxaan leenahay Allah u naxariisto Ilaahay cafiyo damigooda Allah dhaafo intii ay ka dhinteena Allah uu qalbi qaboojiyo samar iyo iimaan hadda wax kale anaga oo noo furana runtii ma jiraan waxa kaliya anagana la karaa waxay tahay dictatorshipka anaga abuurayna madaxda maalintii qaldan yihiin hal joojiyo yaan la buunbuunin qof aan waxba ahayn oo waxba aan dheereyn maalowdu waxa Sheekh Shariif ayiriya la yiri thumma wallahi waa la bixina aniga waxaan qabaa warkaas waa run nin kasta oo sharci lagu doortay oo sharci darro ku dhaqmo waa la bixina maba ahan in laga gorgortamo because anaga dalka in dawladnimada dadka lagu dilo qofku ma dooran meeshan uma geysan marka waxaan leenahay samri iimaan xisbigooda jirna hadii cadaaladda iyo halganka meeshiisa ku sii wado Cabdiraxmaan maalintii gurigan lagu weeraray waxa la lahaay kaligiisa hadda xukunka ka hor ducadeeda waa la aqbalo farmaajo iyo intiisa waa la arkay horta meesha aad leeyahay dadku ku habaariyay kuwaan Ilaahay arka horta aniga Ilaahay dadka ay jeclaysay inaad ku ducaysatay in la aqbalaaba dheeraad marka waa mahadsantihiin wiilashaas dhintana Allah u naxariisto kulligeen inteena noolna samri iimaan Allah naga siiyo anaga dawladnimadeena waa jecelnahay ma diidanin laakiin waxa diidanahay dalkan dagaal sokeeyo ka soo baxay wilina ma caga dhiganay marka waxa muhiimka waxay tahay sida la sheegay sharciga inuu sareeyo iyo qofka awoodda suldada lagu aaminay in gacantiisa amaan laga helo oo dawladnimada oo sidoo doono
uu isticmaalo waa bini aadan hadduu qaldana garaawshiyo oo la yimaado waa mahadsantihiin kolba waxaan haysanaa waqtigii ayaa nagu soo dheelay anigu waxaan leeyahay intaas eegtaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si sahlan ugala soco 89.7 FM mustaqbal radio warbaahin wax dhista